kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka Gurmad Media qodobada ku maqli doontaan waxa kamid ah dad badan oo ku dhintay dagaal laba maleeshiya beeleed maalintii saddexaad ku dhex maraya gobolka Hiiraan odayaasha labada beel ee Hiiraan ku dagaalamaya oo mid kamid ah eed u jeedisay mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan maxaa ka jireen qaar kamid ah mas'uuliyiinta gobolka ay la safan yihiin mid kamid ah qabaa'ilka halka ku dagaalamaya ra'iisul wasaare Khayro Cadaade heshiis kula galay madaxweyne Xaafis sidoo kalena xalay ku hooyday markiisii ugu horeeyay magaalada Cabudwaaq dawladda Soomaaliya oo la sheegay kiiska badda inay kala hadlayso dawladda Kenya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo xiisad halka ka taagan maamulka Jubbaland oo sheegtay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Jubbada Hoose warka dibadda daawadayaal waxa kamid ah Imaaraadka Carabta oo bilaabay in ciidamadiisa uu kala baxo dagaalka Yemen haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawadi subscribe channelkan si aad u hesho warar xaqiiqooyin oo ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa riix calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wax kasta oo aan channelkan soo gelina hagaag intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal wararka ka imaanaya degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dad ka badan 40 qof ay ku dhinteen dagaal xooggan oo u dhaxeeya beelaha halkaasi wada dagaalka oo maalintii saddexaad halka ka taagan ayaa lagu soo waramayaa in dhinacyada iska soo horjeeda wali ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxaana soo kordhiyay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dagaalkaani ka dhashay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi haddana wararku waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay kor u dhaafayso 40 qof dhaawacuna uu ka badan yahay 50 ruux dad ku sugan degmooyinka Maxaas iyo Gurceel oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa inoo sheegay in la gaarsiiyay dad ku soo dhaawacmay dagaalka Nabadoon Cali Cismaan Cabdulle oo ka soo jeeda mid kamid ah beelaha ku dagaalamaya deegaanada u dhaxeeya Maxaas iyo Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa eed culus u soo jeediyay mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan waana kan isagoo hadlaya dadka wadahooda oo dagaali jiray oo qaraaraha oo dariska weeye laakiin sidoo hadda sidii way ka bedelan tahay oo dagaalkaas marka hore Ilaahay waxa uga baryayaa qaboojiyo marka labaadna marka xogkaas iyo dagaalkaas uu socdaa laakiin waa dhacay saac waa dhacay toban waa dhacay shalay waa dhacay waxaana gacan ku leh maamulka gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle hoos taga oo ay dadkaas wada hoos tagaan beelaha halka ku dagaalamaya beel ka mid ah gacan siinaya waxay tahay gudoomiyaha gobolka dadka meesha ku dagaalamaya waa reer Hiiraan oo ka soo jeedan degmooyinka Matabaan iyo Maxaas duleeyda hoostaga ayay degaan madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu ku sugan yahay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan mudooyinka dambe ku sugnaa marafkaabkii gobolka oo la yiraahdo Yuusuf Axmed Hagar Darbeedna wuxuu ku sugan yahay halka waxaan la soconaa ciidamada halka ka dagaalamaya oo misaafka madaxweynaha ugu dhintay waan ogeyn hadda ciidanka halka ka dagaalamaya waa ciidankii gudoomiyaha gobolka iyo maamulkii ka dagaalamaya Beledweyne ka baxday halkaas oo ilaaliyada halka ku leenaya oo gaadiidkii wata madaxweynuhu wato hawiyalkii iyo biisaaniyada ridaya dadka shacabka oo ilaaliyada reebaadiyaha halka ku dagaalamaya asli oo sidaa ma haystaan taas ayaan u ognahay oo dad wada dhashay oo istiqaan oo isku deegaan maamulkii dadku ay wada dhisteen oo ka dhaxeeyay oo Hirshabeelle la jiray ayaa koox gaar iyo qoys gaar u qaadatay iyaga cashuurtoodii iyo waxa lagu leenayaa iyo masarkii ay wax ka dhisteen sidaa weeye marar badan oo hore waxa guul dareystay isku dayo la doonayay in colaadda labada dhinac xal lagu helo oo ay wadeen waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ee dagaalamaya waxa ay soo taraya baaqyada loo jeedinayo beelahan iska soo horjeeda oo laga dalbaday inay xabadda joojiyaan waxa la isku hayana lagu dhameeyo wada xaajood waxaana dadka baaqyada diraya kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isna ku sugan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan markaana Galmudug ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayro maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud sida uu madaxweyne Xaaf sheegayna ah caasimada kumeel gaarka ah ee Galmudug ayaa wuxuu wada hadal uu la yeelanayay maalmihii dambe madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxay gaareen heshiis muddo oo khilaaf xooggan u dhaxeeyay Xaaf iyo madaxda sare ee dawladda dhexe madaxweyne Xaaf iyo Xasan Cali Khayre ayaa heshiiska ay gaareen oo ka koobnaa dhowr qodob waxa ay muhiim u yihiin arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka lagu wado in maamulka Galmudug ay ka dhacaan bisha soo socota oo maalmo qora ka harsan sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya
wasiirka warfaafinta maamulka galmudug maxamuud aadan cismaan masagowa ayaa warbaahinta u akhriyay war murtiyeedka ka soo baxay heshiiska Kheyre iyo Xaaf ay ku gaareen magaalada Cadaado. Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka galmudug iyo sidii loo dhameyn lahaa kala aragti duwanaanshaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug. Falaqayn iyo wada tashi dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobada hoos ku xusan. madaxdu waxay si wada jir ah u bogaadiyeen soo dhaweyntii diiraneed ee 26 Juun 2019 loogu sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre magaalada Cadaado. Madaxweyne Xaaf iyo Ra'iisul Wasaare Kheyre waxay isla garteen in la dejiyo geedi socodka iyo hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka si loo helo galmudug midaysan. 3 in dawlad goboleedka galmudug ay qaadato kaalinteeda kaga aadan arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka iyada oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Number 4 si ay u noqoto caasimad loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda waa inay hay'adaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaalada Dhuusamareeb. 5 in dawladda federaalka Soomaaliya ay soo celiso kabistii miisaaniyadeed ee galmudug si loo dardargeliyo arrimaha amniga iyo adeegyada kala duwan ee bulshada galmudug. sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegaya in odayaasha Cadaado aysan qayb ka ahayn heshiiska ay gaareen Xaaf iyo Kheyre balse odayaasha Kheyre aysan wali isku fahmin halka doorashada maamulka galmudug lagu qabanayo. dhinaca kale waxaa xalay magaalada Cawdwaaq ee gobolka Galgaduud ku hoyday markiisii ugu horeeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wafdi wasiirro iyo xildhibaano iskugu jira uu horkacayo. Xasan Cali Kheyre ayaana xalay kula kulmay magaalada waxgaradka deegaanka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadooduna tahay Cawdwaaq wuxuuna kala hadlay sidii loo dhameyn lahaa kala qaybsanaanta dawlad goboleedka galmudug loona qaban qaabi lahaa dib u heshiisiin iyo doorasho lagu dhiso dawlad ay dhinacyada u dhan yihiin. madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay jiraan warar soo baxaya maalmihii ugu dambeeyay isla markaana sheegay in mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ay doonayaan inay wada hadal kala yeeshaan kiiska badda dawladda Kenya. waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed in madaxda dawladda Soomaaliya laga doonayo inaysan wada hadal la furin dawladda Kenya taasoo halis gelin karta kiiska badda ee Soomaaliya. waxaa jira xogo soo taraya oo tibaaxaya in madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay wadaan kulamo qarsoodi ah oo ay ku doonayaan inay gorgortan iyo wada hadal ka galaan qadiyadda badda ee nagala dhaxaysa dawladda Andariska nahnay ee Kenya. qadiyadaas oo ah qadiyad qarameed iyo mid ummadeed hortaalana maxkamadda cadaaladda adduunka ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. madaxweynihii hore ee galmudug ayaa uga digay madaxda qaranka inay wax gorgortan iyo wada hadal ay ka galaan taaka kamid ah geeyiga dhulka Soomaaliyeed. markaana gobolka Shabeellaha Hoose saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. saraakiisha tagtay degmada ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada 7aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Korneel Xasan Abuukar Xasan Jaamici. tagista Walaweyn ee wafdigan ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii u dambeeyay halka ka taagneed xiisado colaadeed oo u dhaxaysa beelo wada degmada Walaweyn. sidoo kale wafdigan ayaa waxay halka u tageen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xalinta labada beel ee halka isku hor fadhisa. dagaaladii u dambeeyay halka ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 5 qof halka dhaawac ka badan yahay. wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray saakay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ay wali is hor fadhiyaan dhinacyadii ku dagaalamay maalmo ka hor halkaasi lagana cabsi qaba in mar kale ay halkaas ku farasaaraan. markaana Jubbaland maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Jubbada Hoose. afhayeenka wasaaradda dawlad goboleedka Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgallo qorsheysan oo ay ka sameeyeen degmada Jamaame inay ku dileen 8 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab. waxa uu sheegay afhayeenka in howlgalka ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland ay ku tageen deegaano ay ku sugan yihiin Al-Shabaab
sida uu hadalka u dhigay. Cabdinuur ayaa tilmaamay in ciidamada ay la kulmeen weerar ay ku qaadeen al-shabaab balse ay iska caabiyeen ujeedka ay ka lahaayeen howlgalka ayuu wuxuu ku sheegay in ay ka hortagayeen weeraro ay doonayeen al-shabaab inay ku soo qaadaan ciidamada dawladda. Afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland ayaa shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland oo iskaashanaya. Wuxuu intaa ku daray afhayeenka inay sii wadi doonaan howlgaladooda ilaa intay ka qaybanayaan deegaanada ay shabaab ku sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose. Ma jiro wax waran ka soo baxay al-shabaab oo ay kaga hadlayaan sheegashada wasaaradda amniga Jubbaland ee ah in xubno ka tirsan ay ku dileen howlgal isla markaana ay tageen deegaano ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha shabaab. Waxaa isla soo gaarnay daawadayaal markaana warkii dibadda. Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay in ciidamadiisa uu kala baxo dagaalka Yemen. Dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bilowday in ciidamadeeda ay kala baxdo dagaalka Yemen waqti ay sare u sii kacayso xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. Imaaraadka ayaa ah xubin muhiim ah oo ka tirsan isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo kana dagaalama gudaha dalka Yemen sida ay diblomaasiyiin sarsare u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters. Goobaha ay dawladda Imaaraadka ciidamadeeda ay kala soo baxday ayaa waxaa ka mid ah koonfurta dekedda Cadan iyo xeebta galbeed halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo hoggaan u ah dagaalka lagula jiro kooxda Xuutiyiinta. Diblomaasiyiintan oo gaaraya ilaa 3 ayaa ku waramaya in Imaaraadka uu doonayo in uu dib u dhiso ciidamadiisa si ay uga gaashaantaan xiisada ka taagna gobolka kadib weerarkii Iiraan lagu eedeeyay gacanka Cumaan iyo kii Iiraan ay ku soo riday diyaaradii Mareykanka balse ma cadda tirada rasmiga ah ee dawladda Imaaraadka ay kala baxday gudaha dalka Yemen. Daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Gurmad Media. intaa war noocan ah ku kulmi doona sidaas iyo amaana Allah.